الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتين بقى خيارتا قيمها iyo qadarinta mudan ee sida tooska inooga daawanaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed stuudiyihiisa magaalada Amsterdam ee wadanka Holland. daawadayaashaanu jecelnahay oo ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay sanadka cusub ee 2014 barnaamijka ay nagala qayb gali doonaan fanaaniin Soomaaliyeed oo caan ah oo si weyn loogu yaqaan wadanka Holland iyo guud ahaan wadanka Soomaaliya iyo waliba meelaha ay Soomaalidu ka degan tahay dunida. fanaaniinta barnaamijka sanadkan nagala qayb qaadanaya waxaa ka mid ah Maxamed Cabdi Fataax Weerow oo ah muusikiiste la xamiistay isla markaasna heesa. waxaanu jecelnahay caawa heesihiisa quruxda badan iyo waliba muusikadiisa halkan si weyn ugu bogan doontaan isla markaasna aad ka daawan doontaan si toos ah halkan ama telefishinka qaranka Soomaaliyeed stuudiyihiisa ee magaalada Amsterdam. barnaamijka inta uu socdo sidoo kale waxaa qayb weyn ka qaadan doonta heesa macaan halkan ku soo bandhigi doonta Siciida Shiino oo ah fanaanad weyn oo si weyn looga yaqaan meelaha ay degan yihiin Soomaalida oona heesa badan oo qurux badan qaada isla markaasna qayb weyn ka qaadan doonta barnaamijkayga sanadka cusub ee stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee ka baxaya magaalada Amsterdam ee wadanka Holland. waxaa sidoo kale barnaamijka inta uu socdo nagala qayb qaadan doonta Ubax Nacfi oo ah fanaanad Soomaaliyeed oo si weyn looga yaqaan wadanka Holland isla markaasna heesa aad u macaan qaada. waxaan filayaa in heesa cusub ay barnaamijka sanadka cusub ee stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee SNTV ee magaalada Amsterdam ka baxaya ay caawa markaasi inoogu soo bandhigi doonto. waxaan barnaamijka ka marneen oo qayb weyn la markaasi ka qaadan doonta fanaanada da'da yar Ubax Cawlo oo iyana heesa cusub oo sanadka loogu talagalay ay halkan ku soo bandhigi doonto. daawadayaal barnaamijkayga sidaas ayuu inoogu bilaaban doonaa anagoo markaasi heesahaasi iyo waliba waxyaabaha barnaamijka aan ugu talagalnay aad si toos ah nagala daawan doontaan halkan. waa tahay daawadayaal waxaanu marka hore ku bilaabi doonaa si markaasi heesaheeda macaan ay halkan inoogu soo bandhigto maadaama maanta ay tahay sanadka 2014 habeenkii koowaad. Siciida Shiino oo markasta barnaamijka nagala qayb qaadata waxaana markaasi aanu jecelnahay in waxyaabaha ay ugu talagashay ay dadweynaha markaasi u sheegteen. Siciida maadaama barnaamijka nagala qayb galayso maantana ay maalin farxad tahay oo sanadka uu bilow inuu yahay maxaad ugu talagashay dadweynaha in aad la qaybsato sanadka cusub awgiis? waxaan ugu talagalay heesa badan baan ugu talagalay oo jacayl iyo farxad baa isugu jira. marka iminka waxaan ku bilaabaynaa oo heesaan ugu talagalay TV qaranka Soomaaliyeed oo cusub oo saacad ka hor aan diyaarinay waxaana wada qaadaynaa Maxamed Weerow. Siciid heestaas yaa sameeyay maadaama aad telefishin qaranka hees cusub aad u samayseen oo adii Maxamed Weerow aad wada qaadaysaan yaa sameeyay abwaanka heesta sameeyay bal inoogu waxaa sameeyay Cabdirashiid Sheekh Biixi laxankana waxaa saaray Maxamed Weerow iyo muusikada iyo laxanka Maxamed Weerow. waxaan filayaa dabcan in ay tahay heestaasi hees aad u macaan oo aad noogu talagasheen maadaama aan telefishinka SNTV dad fara badan markaas ay ka heli doonaan guud ahaan iyo bahda warbaahinta telefishinka qaranka. daawadayaal heestaasi aanu ku furaynaa barnaamijka sanadka cusub aan ugu talagalnay ee aan ku qabanayno stuudiyaha magaalada Amsterdam ee wadanka Holland. waxaana heestaasi sida ay Siciido inoo sheegto ku luuqeynayaan Maxamed Weerow iyo waliba Siciida Shiino. ku soo dhawaada daawadayaal heestaas. Somali National TV
markuu soo ifbaxay naga baxay haraadkii naga baxay haraadkii naga baxay haraadkii Somali National TV markuu soo ifbaxay naga baxay haraadkii naga baxay haraadkii naga baxay haraadkii war la baaray oo runa adabaahinayo badidina raadshe Somali National TV waan kugu barane dadalkaaga sii badi war la baaray oo runa adabaahinayo badidina raadshe Somali National TV waan kugu barane dadalkaaga sii badi Somali National TV jari burka toro naga bahaya radki naga bahaya radki naga bahaya radki Somali National TV jari burka toro naga bahaya radki naga bahaya radki naga bahaya radki la para yoruna adabahinayo badidina radshe Somali National TV wakugu barane dadalkaaga sii badi Barayo runa adabahinayo badidina radshe Somali National TV wakugu barane dadalkaaga sii badi واتهي آدي آدي يوم هسيهن محمد عبد الفتاح ويرو وسعيد الشينو أو هيس آدو معان إسلام مركزنا أي وطلع قليل تلفزيون كقرنك الصوماليات أي هل كان كو باهيين إسلام مركزنا مفليين دا وضياشو أي سي آدا وبوكينا نقول كوكيلا مدحدا ورباهين تقرنك وحان آدو مهد علنيا أبوان كهيس تاسي سمية عبد الرشيد شيخ بيحي يوم ولباء محمد ويرو وسعيد الشينو أو هيس تاسي ونقول طلع قليل سنة كان عصب إسلام مركز فلان فيلايو إن هي سي آدا أقرب بدن أي هاد أو سي آدا لو فرسميين
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin fanaaniinta heestaasi noo qaaday weli waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkeeni aan ugu talagalnay sanadka cusub iyo fanaaniinta Holland markaasi aan ugu qabanayno magaalada Amsterdam ee wadanka Holland iminka waxaa sidoo kale fanaaniinta qayb ka ah sida aan hore idinku sheegay barnaamijkan ka qayb qaadanaya Ubax Nacfi oo ah fanaaniinta kamid ah reer Holland isla markaasna heesa macaan qaada waxaan filayaa in caawa ay ubax inoogu talagashay heeso aad u macaan gaar ahaan heeso cusub oo ugu talagashay sanadka 2014 ubax marka hore kusoo dhawaad telefishinka qaranka Soomaaliyeed sanadkan taajiro waxaa leeyahay sanad wanaagsan leeyahay nooga dhiga sanadkan waxaan u hayaa hees cusub oo ugu talagalay sanadka cusub dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaa leeyahay sanad wanaagsan ee heladayda aabay sanad guray iyo hooyaday xaawqoota dhammaan faamiligayga dhan walaalahay waxaa leeyahay sanad wanaagsan sanadkan uu is arka Allah naga dhigo waa mahadsan tahay heesta aad sanadkan ugu talagashay dadweynaha inaad halkan ugu qaado codkaaga macaan aad ku gaarsiiso ka warnaysaas yaa sameeyay maxay ka hadlaysaa heesta mahadsanid heesta waxaa sameeyay oo laxankan iskale ereyadana iskale Ustaad Cali Shaacir oo ku nool magaalada Nairobi waxaan leeyahay isagana sanad wanaagsan heesta muusikadiisana waxaa ii tumay musicianka dalka Holland Maxamed Weero wayna fadhiya wallahi ku tumi doona waatay waxaan filayaa daawadayaal in heestii Ubax Nacfi ay markaasi hadda inoogu sheekaysay iminka kusoo dhawaataan waxaadna nagala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed sanad cusub heestaasi Ubax Nacfi ayaana sidoo kale aan iminka idin baahinayna
laqatoobayo u qandhaysane halqalyada hilowban qaban waaye gogosho qamunyada darta laqatoobayo u qandhaysane kay jeclaydo qaligaygiyow udhakay jeclaydo nolol qaayale iyo farxadii lay qoray oon qaatay baad tahay qaligaygiyow udhakay jeclaydo qaligaygiyow udhakay jeclaydo nolol qaayale iyo farxadii lay qoray oon qaatay baad tahay waa tahay daawadayaal weli waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada Amsterdam ee wadanka Holland intaasna waxaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal heestii macaaneed ee qurux ay noo qaadaysay fanaanadeena Ubax Nacfi waxaan filayaa in si aad heestaasi aad ugu bogateen sidoo kale waxa barnaamijka sanadka cusub aan ugu talagalnay nagala qayb qaadanaysa fanaanada da'da yar ee Ubax Cawlo oo ayadan inoogu tala gashay in heeso macaan ay halkan caawa ka qaado dabcan waxaan filayaa heesaheeda mid kamid ah in ay caawa ay noogu bilaabi doonto Ubax maadaama aad qayb ka tahay barnaamijkan sanadka cusub maxaad annaga iyo dadweynaha noogu talagashay walaalahay heeso badan baan idinku soo talagalay heesto sharaf u horeyso heesta sharaf waxaa sameeyey maxamed deeq alfa laxanka waxaa saaray jini shumi miisigana waa maxamed bushaawi وماسنتا ubax waxaan filayaa heestaas ubax ay noo sheegtay in markaasi ay barnaamijka qayb ka noqon doonto isla markaasna codkeeda macaan ay nagu soo gaarsiin doonto daawasho waxa
شيخيو شريفيو دكتور يا لشيغو شيغي واي عذر كان حبيبي أنا شوقي ويلي وش شوغاني شيد مالها نفايدو نديد كاشمايا شو هذا وقتها انت سيان كنا فينا هستي شرف iyo waliba fanaanadeena ubaxa cawlo waxaana kamid ahayd heesaha ugu talagalnay sanadka cusub in aanu halkaan idinkaga soo tubino waxaana nagala socotaan telefishinka qaranka xaruntiisa magaalada Amsterdam ee wadanka Holland waxaana sidoo kale wali aan bartan kaga jirnay heesihii baaxadda lahaa ee cusba ee ay fanaaniinta sanadkan inoogu talagaleen isla markaasna ay ugu talagaleen in markaasi ay ka baxaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxa sidoo aan ku soo laabanayna maadaama hees talantali ah ay inoo qaadeen goordhow Saciid Shiino iyo Maxamed Weero heestaasi oo ahayd hees markaasi loogu talagalay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ama guud ahaan warbaahinta qaranka iminka waxaan jeclahay in markaan hees kaliya ay inoo qaado oo markaasi ku saabsan heesaha ay inoogu talagashay Saciid maadaama goordhow ay inoo qaadeen hees talantali adiga Maxamed Weero iminka waxaad noogu xijinaysaa oo aad jeceshahay inaad telefishinka maanta kaga qayb qaadatid barnaamijkan ka baxaya Wisdom waxaan idin qaadayaa hees la magac baxday xaradiid erayada waxaa iskale Jamaan Diiwaan laxankana waxaa iskale Axmed Cawad muusigana Bashiir Hamiye labistana Maxamed Weero waatahay waxaan filayaa in daawadayaal heesta ay Saciido inoo sheegtay inay nagu soo maqan tahay ayna tahay hees si aad markaasi ugu raaxaysan doontaan nala daawada حنون حديدة شركيو أبدلي حسكبا إساقون حنون حديدة شركيو أبدلي حسكبا حسوسي قلبي لو حوميو
haygu xoomisay xilligii kastaba xayaabada kalgacal haygu xoomisay عنانكو حمي هكا بحين حدكو عنانكو حمي هكا بحين حدكو حيرتيد هنغن حيرتيد هنغن حيرتيد هنغن حيرتيد هنغن inkastoo xastigu xalso jirayo ibtidiyo xiyahaye inkastoo xastigu xalso jirayo ibtidiyo xiyahaye يا نولول يا هلال حقتها أكون كلا حنيبان لبادي حلقان عسرني يا نولول عالسيدة حبنها يسوفيقها تردا جعلك وحسني عالسيدة حبنها يسوفيقها تردا جعلك وحسني عنانكو حمي هكا بحين حدكو عنانكو حمي هكا بحين حدكو حيرتيد هنغن حيرتيد هنغن حيرتيد هنغن حيرتيد هنغن داود waxaan filayaa in heesta xiridiid iyo fanaanada Saciid Shiino aad si aad ugu bagateen ka baxay telefishinka qaranka Soomaaliyeed isla markaasna qayb ka ahayd barnaamijkayga aan ugu talagalnay sanadka cusub ee 2014 oo maanta bisha 1 ay tahay waxaana sidoo kale barnaamijka qayb ka ah saaxiibkeen Maxamed Cabdi Fataax Weerow oo asna goordhoweed asaga iyo Saciid Shiino ay noo qaadeen heestii SNTV loogu talagalay isla markaasna si weyn aan markaas ugu mahad celinayno waxaana sidoo kale Maxamed Cabdi Fataax Weerow iminka uu diyaar leeyahay in uu dadweynaha la wadaago iyo annagaba hees aad u qurux badan oo markaas ku saabsan heesaha cusub ee sanadkan markaa uu soo bandhigay Maxamed Weerow maadaama hees cusub aad noo sheegtay inaad sanadkan soo bandhigtay heestu magaceeda iyo qofka qaaday iyo muusigada dabcan inaad adigu samaysan filaya laxanka bal heestaasi waxay faalanaysaa حس صوب لما بعد بلد حاول وحاسب رياضة ليبان محمد ليبان دير اللحن كا موسيقى ذا يقعد كبا أيضا قلت لك سنة عصب وحال لي سنة ونكسر دمان الصومالية حسب التلفزيون تقارك الصومالية بعد كشف الصومال يو كاجيو يو راجع البيرة اسمه كان لما هذا سنة ونكسر وما سنتها محمد ويرو هستاسي أيان فليا إن
dadweynaha ugu talagashay si toos ah markaan kaga daawanaya telefishinka qaranka daawadaan kusoo dhawaada heestii maxamed weerow ee telefishinka qaranka Soomaaliyeedna waad nagala socotaan
belad raaco idhawacan wata heestii balad xaawe iyo waliba fanaankii maxamed weerow intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal aadna si aadaha markaasi ugu daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliyeed daawadayaal intaas ayaana guud ahaan barnaamijkii aan ugu talagalnay sanadka cusub ee 2014 isla markaasna aan ku soo gootinay sanadka 2013 aan ku soo gabagabaynaynaa waxaana barnaamijkan oo ka baxaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed stuudiyihiisa magaalada Amsterdam ee wadanka Holland igala qayb qaadanayay maxamed cabdi fataax weerow oo ah muusikiiste isla markaasna heesa sidoo kale laxanka sameeya waxaa sidoo kale barnaamijka qayb weyn ka qaadanaysa isla markaasna heesa macaan ku soo bandhigtay fanaanada Saciido Shiino oo markaasi kamid ahayd fanaaniintii maanta barnaamijka nagala qayb galay waxaa sidoo kale barnaamijka inta uu socdo daawadayaal aad daawateen heesaheeda macaan fanaanada Ubax Nacfi oo kamid ah fanaaniinta reer Holland isla markaasna hees aad u macaan halkaan ku soo bandhigtay daawadayaal aadna si weyn markaasi ugu raaxaysateen waxaa sidoo kale barnaamijka qayb weyn ka qaadatay isla markaasna hees qurux badan oo si weyn markaasi idin soo jiidatay halkaan markaasi noogu qaadaysay fanaanadeena da'da yar Ubax Cawlo waxaan filayaa in Ubax Cawlo heesteedana si aad markaasi aad ugu bogateen aadna ka daawanayseen telefishinka qaranka barnaamijkiisa ka baxay stuudiyihiisa magaalada Amsterdam ee wadanka Holland barnaamijka waxaa idin soo saaray isla markaasna idin tabinaya anigoo ah Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajirow waxaan sidoo kale barnaamijka qayb weyn ka qaatay dhinaca kaamirada iyo waliba isku dubridka iyo waliba farsamada raaga cali dheere oo mar walba markaasi barnaamijyada si weyn markaasi telefishinka qaranka Soomaaliyeed uga caawiya duubista iyo waliba farsamada intaan barnaamijkan lamida aanu ku kulmayna daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh